بسم الله الرحمن الرحيم رمضان مبارك داوديال si kasta iyo meel kasta oo nagala socotaan ka gadaal markii madaxweyne Donald Trump dharbaaxo xoogan uu kala kulmay shalay 9 xubnood ee maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayaa waxa muuqanaysa in wadamadii uu horay u saaray cashuuraadka alaabahoodii ay keeni jireen gudaha dalka Mareykanka haatan ay ku raaxaysanayaan go'aanka maxkamadda sare isla markaasina gudahooda ay ka bilaabatay wadamadaasi damaashaad iyo dabaaldegyo la xiriira siday ugu faraxsan yihiin go'aankan in ay maqlaan waxa wadamada dalkan dariska la ah sida Canada iyo sidoo kale Mexico oo dalkan Mareykanka uu kala dhaxeeyay heshiis dhinaca ganacsiga ah oo saameynaya ilaa iyo 500 milyan oo dad ah ayaa haatan waxa ay bilaabeen in ay si weyn ugu farxaan ka gadaal markii ay soo baxday go'aanka maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka haddii aad maqli jirtay ama buur ahow ama buur ku tirsanow waa sidan oo kale to wadankaasi Canada ayaa 100% waxa uu horay isugu dhiibay dalkan Mareykanka marka ay timaado dhaqaalaha iyo wax isweydaarsiga iyo sidoo kale galaangalka dalka Canada waxa looga arkay wadanka Mareykanka wadan weyn oo dhinaca ku haya isla markaasina aysan marnaba wax dhibaato ah ka soo wajahaynin hase yeeshee madaxweyne Donald Trump markii uu xukunka yimid sanadkan markii uu saaray canshuurta wadankaasi alaabaha laga soo galiyay dalkan Mareykanka sida birta maarta iyo aluminiyumka ayaa taasi waxa ay saameyn xoogan ku yeelatay dhaqaalihii wadankaasi Canada oo hoos u daadagay waayo kumanaan shirkado ah oo kala gedisan iyo sidoo kale boqolaal kun oo dad oo ka shaqeynaya shirkadahaasi ayaa gabi ahaanba shaqooyinkooda ama ay istaageen maadaama alaabta ay iibgeen jireen Mareykankana laga dalban jiray la joojiyay ama cashuuraadkoodu uu aad hawada u maray ama qaarkoodba ay dhimeen howlihii shaqo ee ay hayeen waxaana jira shaqaale aad u fara badan oo kumanaan gaaraya oo shaqo joojin lagu sameeyay dawladda Canada ayaa xaaladan waxay ku ahayd qaadan waa ka gadaal markii si aan digniin lahayn waliba dawladda Mareykanku ay ugu soo rogtay cashuurtaasi hase yeeshee dawladda Canada ayaa waxa ay sameysay wax la yiraahdo isku tashi bulsho iyada oo tiri waa in garbaha ay dadku isku qaadaan oo ay istabantaabiyaan xilligan adag oo ay ka baxaan xaaladan ay ku jiraan ayadoo hadaba taasi ay jirto ayaa maxkamadda sare ee dalka Mareykanka hal mar ah waxa ay ku dhawaaqday shalayto in cashuurtaasi ay meesha ka bixisay oo ay laashay ka gadaal markii ay ku sheegtay inay tahay sharci darro madaxweyne Donald Trump ayaa arrinkaasi si weyn uga falceliyay waxa uuna xataa aflagaado u geystay xubnaha 9 ah ee ku jira maxkamadda sare oo iyagu 3 kamid ah oo kaliya ay aragtidiisa raaceen halka 6 kaleetana ay ka soo horjeesteen cashuurahan xoogan ee uu saarayay dalalkan waxa ay ku noqotay dhabarjab xoogan madaxweyne Donald Trump iyo dawladiisaba arrintan wasiirka lacagta ee dalkan Mareykanka oo ku sugan gobolka Texas ayaa maanta waxa uu sheegay in xubnaha maxkamadan ay ku dhaqaaqeen tallaabo wiiqayso sida uu yiri dhaqaalihii uu rabay madaxweyne Donald Trump in uu sare ugu qaado dalkan muddada uu gacanta ku hayo xilkiisa hase yeeshee maxkamadda sare ayaa waxa ay leedahay waxay ahayd in ay Congress-ka dalkan Mareykanka ay meel mariyaan haddii cashuur la saarayo wadamada alaabaha keena gudaha dalkan Mareykanka balse markii ay ka qaadeen arrintan xayiraada ayaa waxa durbaba bilaabay qaar kamid ah gobolada dalkan Mareykanka in ay governaradooda ama gubernatoriyaasha goboladaasi ay sheegaan in dawladda dhexe ee madaxweyne Donald Trump ay dacweynayaan sabab la xiriira ayada oo lacag fara badan oo in ka badan 150 bilyan oo dollar ah ka qaaday dadkaasi waxa jirta gobolada Illinois iyo sidoo kale Florida iyo kuwa kale oo dhamaantoodba dimuqraadigu ay hogaaminayaan in haatan ay sheegeen in ay u soo diri doonaan dawladda biilasha la xiriira in ay dib ugu soo celiso dhaqaalihii hore looga qaaday dadkeeda ama shirkadaheeda ganacsiga ama xataa goboladaasi waxay arrintan imaanaysaa xilli dhinaca kale sida aan horeyba u soo sheegay madaxweyne Donald Trump uu dharbaaxooyin xoogan kala kulmay qaar kamid ah gobornarada gobolada iyo dadka u dooda xuquuqda dadka oo si weyn uga soo horjeeda arrimaha la xiriira burburinta iyo sidoo kale qabqabashada dadyoga soo galootiga ee dalkan Mareykanka madaxweyne Donald Trump uu sheegay in hay'adihiisa inta ay jiraan arrimaha socdaalka ay la dagaalami doonaan hadaba wadanka Canada maxay yihiin waxyaabaha sida weyn haatan looga dhursugayo dalka Canada
waxaa waqtigan muuqanaysa in uu soo noolaanayo ka gadaal markii dhaqaale xumo xooggan ay soo wajahday shaqaale fara badani ay shaqooyinka ka fariisteen shirkado fara badani la baabi'iyay amaba xataa dhinaca kale to shaqooyinkoodii hoos loo dhimay isla markaasina alaabihii ay iib geen jireen ay yaraadeen amaba ay meesha ka baxeen taasi oo keenta xataa in lacagta cadaanka ah iyo suuqyaduba ay hoos u dhacaan wadankaasi Canada ayaa waxyaabo badan waxa uu ku tirsan yahay wax soo saarka wadankan Mareykanka amaba alaabaha Canada laga keeno ee halkan la keeno oo dhaqaale xoogan ay wadankaasi ku qabeen si kastaba ha ahaatee arintan waxa ay u ekaanaysaa mid wadamadan soo dhaweyntooda kadib laga dhursugayo xataa madaxweyne Donald Trump cashuuraha horta leh oo uu ku soo kordhiyay haatanba dalalka alaabaha keenaya gudaha dalka Mareykanka ee 10% ah shalayto ka gadaal markii uu si weyn shalay uga weeraxay oo uu dhibaato u dareemay in maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka xubnaheeda ay laalaan cashuuraadkii hore uu u saaray dalalkaasi haddaba Donald Trump ayaa dhinaca kale daawadayaal haddii uu diido amarka maxkamadda sare waxa uu wajihi karaa caqabado xoogan oo asaga laftirkiisa lagu soo dacweyn karo arintan sharcigana la tiigsan karo si kastaba wararka ku saleysan Mareykanka iyo guud ahaanba caalamkaba Somali Coverage TV ayaad kala socon doontaan haddii Allah awood la ogolaado inta aynu ku guda jirno bishan barakeysan ee Ramadaanna waxa aan si gaar ah idin la socodsiin doonaa arrimaha Soomaalida dunida muslimka Mareykanka iyo guud ahaanba ummadda iyo guud ahaanba caalamka intiisa kale isma dhaafna ee nabadgelyo